بسم الله وحير جوج إلى دقيسو على مضها إشا حسدك قفك مركا لا إليستو أما لا حسدو أستاما إدباتوين علامات أيو دريميا وحانا كمده على مضهان قفك أو همانسي فربضان أما أفكك لتاكتاغا si isdaba joog ah sida qof hurdo haysa oo kale neefta qaadanaya mar walba afka kala taagtaagayo waxaa kaloo ka mid ah sidaas oo kale hawo caloosha ka imaanayso oo qofka afkiisa soo dhaafayso iyadoo oona cunto badan qofka uu cunay aan jirin waxaa kaloo ka mid ah cuncun fara badan iyo isxagasho oo korka uu cuncunayo xaganayo waxaa kaloo ka mid ah qofka ishii xasadka ay dhibaateynayaan aan dhuuftufid badan ama sanka ka diifsado sanka biyo badan ka socdo ama aan dhuuftufid badan waxaa kaloo ka mid ah isha iyo xasadka qofkay waxyeeleeyeen dhibaatooyinka jasadka ay ku leeyihiin finan iyo nabro qofka ka soo baxayo meelo booga iska naqanaya jasadka waxaa kaloo ka mid ah calaamado jirkiisa ka soo baxayo sida qaabka isha oo kale u eg isha ibni aadanka oo kaleeto sawir u eg oo dhaawac oo kale ah ayaa ka soo baxayo qofka jirkiisa ama wuxuu ku arkayaa dhabarkiisa ama boodooyinka lagu arkayaa ama gacmaha garbaha lagu arkayaa waxaa kaloo ka mid ah calaamadaha isha iyo xasadka qofka la dhibaataysan xasad iyo il dareen kulul oo aad iyo aad u badan ama qabow sabab muuqatana aan lahayn qofka inuu kuleyl dareemo ama qabow uu dareemo waxaa laga yaabaa jawi kulul asoo ku jiro inuu aad iyo aad qabow u dareemo isagoo qabow ku jirana inuu aad iyo aad kuleyl u dareemo sidaasoo kale qofka ciriiri laabta ayuu dareemayaa laabta ayaa aad u ciriiriyoobayso tanafuska ama neef qaadashada ayaa dhibayso naqaska ku dhegdhegayo qofka ishii xasadka la dhibaataysan waxaa ka mid ah calaamadaha lagu garto tabar yari qofka aad buu u tabar darnaanayaa caajis badan korjajab hurdo la-aan sidaasoo kale wuxuu yeelanayaa qofka waswaas aad buu u waswaasayaa qofka ishii xasadka dhibaataysay sidaasoo kaleeto qofka wuxuu noqonayaa qof jirka iska soo barara wax cayil u eg oo kaleeto inuu cayilay oo kale iyadoo cunto badan iyo borotiin badan uu isticmaalin oo cayil u keenin ayuu maaragtay iska barbararaya waa xanuun xasadkay isha dhibaateynaya waxaa kaloo dareemayaa qofka xaaladaha xanuuno fara badan oo soo noqnoqda haddii dhakhtar uu tago xataa wax natiijo aan laga soo sheegeyn natiijo aan laga soo sheegeyn daawooyinka iyo waxyaabaha uu soo qaatayna aanu ku caafimaadeen haddii tayadooda la ziyaadiye xataa weli goobaha caafimaadku ku noqnoqonaya ishii ayaa kusoo noqnoqonaysa xanuunkeeda iyo jiradeeda waxay ka mid tahay calaamadaha ishii xasadka qofku wuxuu dareemayaa si nafsiyana walwal qof asaga dhan xaaladiisa ee maalaawaal ee tahay maqana joogo cabsi ayuu noqonayaa qof dareema wuxuu noqonayaa qof murugo badan hilmaamid fara badan u yeelanaa hurdada mararka qaarkooda ma ka dhargayo hurdana ma helayo mararka qaarkood wuxuu seexanayaa markuu shaqada tago ama meel oo waxbarasho uu leeyahay ama jaamacad ama dugsi quraan ama iskuul qofku wuu seexanayaa waxbarashada meelaheeda markuu tago hurdaa qabanayso madax xanuunaa qabanayo mar allaala markuu shaqooyinkii meelaheeda tago hurdo iyo madax xanuunaa qabanayo sidaasoo kaleeto xilliga imtixaanka oo kale arday hadduu yahay hurdo iyo madax xanuun aad u daranaa qabanayo sidaasoo kale waxay leedahay isha iyo xasadka calaamadaheeda waxaa ka mid ah dhibaatooyinka jasadka u geysato qofka xibnihiisa u geysato xasaasiyaday ku kicisaa sanka labadiisa dalool sanka labadiisa dalool ayay ku kicisaa xasaasiyad iyo alerjiga ku kicisaa waxay ka mid tahay waxyaabaha hindhisyada faraha badan qofka iska hindhisyanayo iyadoon hergab jirin waxyaabo boor iyo jawi isbedel aanan jirin qofka noocaasi dhibaatooyinkaas qaba il xasad ayuu la dhibaataysan yahay waxaa ka mid ah timaha oo soo daata timaha oo ka daata qofka rag iyo dumar qofka isha iyo xasadka ay dhibaataysa waxaa ka mid ah inuu qofka timihiisa ay daataan timo daadasho shallada ayuu qofka dhibsanayaa timihiisa aad u soo daadanaya sidaasoo kale qofku wuxuu yeelanayaa labadiisa indhood qaybta hoose indhaha hoostooda madow ayuu ka yeelanayaa madow waa qaybta wejiga indhaha hoostooda qaybta wejiga ah wuxuu ka yeelanayaa madmadow ayuu qofka ka yeelanayaa wejigiisana wuxuu noqonayaa weji yacni huruud oo kale ah oo jaallo oo kale ama midabka dhogorta isbedelaya qofka madax xanuun joogta ayuuna qofka dareemaya waa calaamadaha isha iyo xasadka qofka la dhibaataysan uu dareemayo sidaasoo kaleeto qofka wuxuu yeelanayaa makhaarkiisa ayaa xogaho yar wuxuu noqonayaa mid xoqxoqan oo kale ama isbedelayo sida meelaha farjiga oo kale
sida nabraha waxay ka soo baxayaan bowdaha oo kale, gacmaha oo kaleeto, takfalaha oo kaleeto, meelahaas ayuu qofka ka dhibaatoobaya. inta ugu badanna qofka dhaawacyo ayaa waxay ka gaarayaan markuu subaxi soo kaco wuxuu arkayaa xalay oo dhaawacyo soo gaartay, waaga markuu baryo jirkiisa qaybo ka mid a ama boodaha ama gacmaha ay wuxuu ka arkayaa xariiqmo iyo dhaawacyo ku yaala. waxay ka mid tahay calaamadaha isha iyo xasadka. xanuun ayaa qofka ku dhacaya calooshiisa, calool istaag fara badan ayuu dareemaya, dibriye badan ayuu dareemaya, sida gaas oo kale ayuu dareemaya, gaas calooleed oo kale. dhakhaatiirtana wax xal ayay u weynayaan, xal oo qofkaasi uu ku caafimaado caloosha dhibaatada ay kaga jirto uu ku caafimaado ayay u weynayaan. qofkana wuu ku wareerayaa, maxaa yeele cuqadkii ama guntiimihii isha ayaa halkaa ku dhegan caloosha ku jiro, waa isha caloosha degta. dhibaatooyinka waxaa ka mid mandhiciraha ay aad u kicinayaan, mandhicirka weyn ay aad u kicinayaan, dhibaato ay u keenayaan mandhiciraha. qofka inay shaqeeyaan mandhicirihiisa dhibaatay ku keenayaan. sidaasoo kaleeto qofka waxay ku bilaabayaan si lama filaan ah inuu maqaarkiisa iyo korkiisa iyo inay isbedelaan, quruxdiisa qofka inay hoos u dhacdo, sidaasoo kaleeto qofka guriga inuu ku nagaado ma jeclaanayo, inuu guriga ka baxo oo guriga ka tago, familka ka dheeraado, joogitaanka guriga ayuu nacayaa, guriga inuu joogo ayuu nacayaa, reerka inuu ka tago ama familku ka tago ayuu jeclaysanayaa, banaanka ayuu jeclaysanaya inuu aado. waxaa kaloo qofka lagu soo tuurayaa isha iyo xasadka markay aad u dhibaato badan yihiin oo aad u xoogan yihiin, ee xasad aad u xoog badan ay tahay, waxaa lagu soo tuurayaa dareen dhimasho oo kale. waxaa laleeyahay waa dhimanaysaa. hadduu social media ama diriska ama dhimasho qabar lasoo gaarsiiyo, aad buu u cabsanayaa dhimasho iyo rajo inuu maaragtay helaynin, inuu adduunkan isaga tago. maxaa ku keenay adduunkan oo kale? ilaahay muu kaa wado? waa dhibaato badanana qabtaa, wax ma helaysid, waxbarasho maxay kuu taree, maxaa ka shaqaynaysaa hadda? wax noocaas oo kale lagu soo tuuraya. qofka waxaa yacni uu u malaynaya markuu xanuunsado cudurro kala duwana soo marmaraayo, dhakhtarka hadduu tago waxba iskuma soo arkaayo. marka dambe qofku wuxuu isleeyahay dhibaato kale iyo cudurro kale aan halkan lagu daaweyn karin aa ku haysato, waxyaaba xunxun wuxuu ku fikiraya, ka cabsanaya ayuu ku fikiraya. hadduu dhakhtar tagana natiijooyinkiisa nadiif ayay soo noqonayaan. waxyaabo badan oo qofka arkaya waxay ka mid tahay marka calaamadaha isha iyo xasadka. qofka wuxuu noqonayaa qof aad iyo aad u jilicsan oo qalbigana maaragtay ka jaban oo aad u walwalsan. wuxuuna noqonayaa qof yacni aad iyo aad wareerkiisa u farabata. qofka gurigiisa isha iyo xasadka la dhibaataysan, gurigiisa wuxuu ku arkayaa ama qolkiisa gaar ahaan wuxuu ku arkayaa quraansho fara badan oo guriga mar walba si lama filaan uga soo baxayso, meelaha aan la mari karin iska maraysaa, meel walba ayay guriga ka dhibaysaa, mararka qaar meel gaar ay qofka gurigiisa ka dhibaysaa. marka calaamadahaas haddii aad aragto il ama xasad, il iyo xasad ayaa ku dhibaateynayso. xitaa guriga ishii xasadka ku dhacday ama reerkaas isha iyo xasadka ku dhacday, familka qeyb ka mid ah ku dhacday dhibaatadaas, caruurta xataa way saameynaysaa. caruurta aad iyo aad u oynayaan, aad bay maaragtay u carab badnaanayaan, way xanaaqayaan, madax adayg bay bilaabayaan, way xanuunsanayaan. waxyaabo badan ayaa jira. qofka isha iyo xasadka la dhibaataysan riyooyin badan uu ku riyoonaya. waxaa ka mid cayayaan fara badan uu arkayaa, wuxuu ku riyoonayaa bisado, wuxuu ku riyoonayaa dabaqalooca geedka la yidhaahdo, ey fara badan uu arkayaa, wax jini u eg oo kale ayuu arkayaa. wuxuu arkayaa allahu mustacaan meelo wasakh ah isigoo jooga ayuu ku riyoonayaa. sidaasoo kaleeto qofka wuxuu arkayaa quraansho fara badan ayuu ku riyoonayaa. waxaa ka mid qofka isha xasadka iyo la dhibaataysan, waxaa ka mid wuxuu arkayaa qof uu ka shikisan yahay ayuu riyada ku arkayaa. xasad ama inuu xasday ama inuu ilaystay uu kaga shikisan yahay oo cadow ah ayuu ku arkayaa riyada, asagoo si xun usoo fiirinayo, si xun u eegay qabuuraha ama wax dhintay ama dad dhintay asagoo dhex jooga ayuu arkayaa. waxyaabaha noocaas camal haddii qofka uu ku riyoodo, il xasad ayuu la dhibaataysan yahay. adiga haddaad calaamadahan wax ka mid isku aragtay, si degdega quraansaarka ama cilaajka naftaada ugu bilow, ama u tag qof raaqiya aad ku kalsoon tahay. wixii intaan ka badan oo talo celin ah oo aadna soo weydiinaysaan, lambarka brofailka saar whatsappka, muqdishoan ku suganahay. insha allahu tacaala waa idin caawinaya. wax allaal waxaad dareentay komatiga kusoo qor, walaalaha kale u sheergareey. ammaanuu kugu yahay videogan ama codkaygan risaaladan aan gudbinayo. walaalaha kaleeto iyo inta la xanuunsan dhibkan haddaad adiga tahay, reerka wax ka mid a asxaabta kulli u sheergareey. hala sheergareeyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.